السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات مركزة جوجتان واند السلامة ولا شينا من لكم في شيء السلام كدي واحد ربع هالكلنا كلا يرى هالله فرينتنا أدي جارسيسان فرحية عبسية والله دبر دقي علماء الإسلام كا والله دبر دقي دين الإسلام كا والله دبر دقي قبله الإسلام كا أمر والبمرنا وذات سوق هذا نيسا مرنا قبل جلباب وذات سوق هذا نيسا iyadoo marka qaar amaanaysa dadka diinta islaamka ku xadgudbaya cajiib bay ila noqotay in maalin walba aad dhegaysataan qof muslim isku sheegaya oo marayar intuu idin soo qaatay maalin walba islaamka dhaleecaynaya waliba aad intooda badan intiina badan aad iska dhegaysataan oo aamintaan waxay ku hadlayso Faxiya Cabsiye waxyaabo badan oo ay ka hadlayso waxna waa wax saxa oo wax la qaadan karo waa macquul waxayse u badan tahay inay islaamka iyo diinta islaamka inta badan ay dhibaato maaragtay ay ka sheegayso war diintu waa diinullah waa diin islaam weeyaan diintu dhibaato ma geysan laakiin shakhsiyaad baa wax geysta qofka hadduu khaldamo oo khaladaadkiisa macnaha diinta ku marmarsiyoonayo maaha inaad adigana diinta ugu soo gabato aad tiraahdo bal diinteena saasay tiri bal waxa la dhegaysanaya eega bal waxaad maaragtay diin ka dhiganaysaan eega aad baad ugu khaldantahay waxyaabaha badan ayaad ku hadlaysaa Faxiya Cabsiye islaamku shakhsi qof xun oo shakhsiyadiisu xun tahay oo aan sida diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala fartay aanan ku dhaqmin wuu jiraa qofkaas oo kale diinta laguma soo masaali karo diintu waa diin nasteexa waa diin wanaagsan qofkii markaa ilaahay ka baqaya ku dhaqmaya qofkii kalena kuma dhaqmaya laakiin maaha inaad shakhsiyaad xumaaday maalin walba aad u soo qaadato tusaale waxaan la hadlayaa Faxiya Cabsiye la hadlayaa Faxiya Cabsiye dadka raacsan ama u jiibinaya waxaad ku khaldan tihiin waxyaabo badan oo aydin fikrad ahaan fahmaynin meesha ay gabadhani ka socoto gabadhani kama socoto inay bulshada wanaag u sheegayso gabadhani waxay ka socotaa wax aan aad uga shakiyay bay ka socotaa uma layn maayo qof islaama inay tahay Allahu yaclam qof islaam gaal kuma sheegi kartid laakiin anigu afkay gaal ma soo marin balse haddii qof muslima tahay oo qof shahaadanaysa tahay caalamka waxyaabaha ka dhacaya kale ka sheekeen lahayd 24 hours markaan arkaba diinta islaamka wax ka sheegaysaa markaan arkaba diinta islaamka wax ka sheegaysaa 24 hours waxay ka hadlaysaa culimada islaamka waxay ka hadlaysaa masaajidada barba shiiq bay soo qaadanaysaa waxaan hadda videogan iga cadhaysiisay oo macnaha igu kalafay inaan soo duubo waxay tiri waxay soo dhigtay shiiqi ayanta dhawta lagu dilay Mareykanka Allah u naxariistee Sheekh Maxamed Xasan waa wada ogsoonaa Sheekh Maxamed Xasan sida lagu dilay sida macnaha dhibaatada loo geystay shiiqaas in la xaday in la qariyay in maalmo la weysanaa maalmo ka bacdina meydkiisa la helay waa naagta iyadoo geeridiisa ka sheekeynaysa heeska soo saaratay xagaa lagu arkay tacsiye iyo hees kor yaala caalamka ma arag qof murugo ku dhacday oo waliba si foolxun waliba loo dilay si foolxun geeri u dhacday inaad maanta inta soo qaadato hees kor saarato ku kor raaxaysato farxiyo oo aad heeska ku dul saarato waa wax cajiib ila noqotay la yaab weeyaan waxaan aad sameynayso waxyaabaad ku dhaqmayso waxaad baan dhawad soo qaadatay gabar islaameed oo ma sha Allah culimo ah oo wadaad ah oo gabdhaha islaamka waaninaysa gabadhaas waxyaabihii ku waaninaysa wax ceeba kuma jirin waxay soo qaadatay waxay tiri bal eega bay tiri bal waxay ku hadlaysaa eega gabdhii waxay u bixisay magac kale u bixisay raggiina magac kale u bixisay waxay tiri bal eega waxay ku hadlaysaa waxay leedahay raggiina gogasha ugu wanaagsanaada waa waanada noocaas oo kale ma dhibaata ku jirta marka hadday gabadhu tiraahdo raggiina gogasha ugu wanaagsanaada waa waana gabadh nasteexa gabadha islaamka ay siinaysay maxaa ceeba ku jira waa adiga amaanaya iimaan oo ogtahay waxa ay tahay iimaan oo faashin ahayd iimaan oo nin gaale guursatay iimaan oo nin khaniisa guursatay waa naagta intay soo istaagtay tiri Soomaalidu jacaylka waxba kama yaqaanaan ahla waxay jacaylka ka yaqaanaan ma jirto naagta noocaasna wad amaanaysaa gabadha jilbaabka wadata ee ilaahay ka baqaysa ee gabdhaha islaamka u nasteexaynaysa wad caayaysa nahoy diintaada waxba ku jira nahoy diintaada shaki baa ku jira wixii ku raacay ku aaminsan ayaa anigu la yaabsan laakiin diintaada shaki baa ku jira waxyaabaha culimada ku daba dhigay ee maalin walba aad marba wadaad u soo qaadanayso sheekh muxuu ahaa shibile buu ahaa ninka atri beenawaas way dhageysta sheekh umal buu ahaa inta badan Soomaaliyay sheekh umal iyo sheekh shibile in badan baa waxaan arkay dadyow aynaya ama aflagaadeynaya intaasina waxa weeyaan diinteena waa la yiri 3 firqadood ama 7 firqadood bay u kala baxaysaa firqada saxda qofka haysto un baa nasiib badan firqado badan oo ay ka mid yihiin qolada la yiraahdo suufiyiinta
oo waxaan arkay aad u eedaynaya in badan aan ka celiyay sheekh umar iyo sheekh shibili gabadhani waxay taageertaa nin la yiraahdo sheekh kishke sheekh aniga ima ahe kishke nin la yiraahdo oo hadda ka hor aan fiidiyoyadeeda kaga hadlay oo inta badan aaminsan falsafad qofka marka falsafadahu badanaa waa falsafad gaaleed falsafad wax la yiraahdo diintu kuma dhisna diintu cilmi bay ku dhisan tahay cilmigeedin dadkii lahaana waxay tiri ha dhagaysanina ninkan ay leedahay hala dhageystana kishke waan ka sheekeeyey waa ninka aaminsan dadka muslimiin muxuu ahaa dadka bini aadmiga waxaa laga soo abuuray daanyeer yaa aaminsan gaala aaminsan inta badan naagta noocaasa ee tiri ninkaasi hala dhegeysta laakiin sheekh umar iyo sheekh shibil habeen iyo maalin bay aflagaadaynaysa oo culimadii soo qabsanaysa oo gabdhihii jilbaabka wadatay ee xishoonaya soo qabsanaysa oo xijaabkii caayaysa waxaanay huwadaan dee anu garan maaye naagta tiri weeyaan waxaanay huwadaan anugu garan maaye xijaabkan iyo khamaarkan ilkaa wadato diin uma wadatid farxiyo khamaarkan iyo waxanaad wadato diin uma wadatid waxa u fadhidaa meeshan inaa islaamka maalin walba dhaleeca aad usoo samayso islaamka iyo diinta muslimka qofku markuu muslim yahay diintu waa islaam qofkuna waa muslim qofka muslimka ah waxyaabo khaladaada ka dhici kara dhibaata ka dhici karta laakiin diintu khaladaad kama dhaco diinta sida la yiri u qaata haddaan u qaadano khaladaad badan ma dhaceen waa runta waxyaabo badan oo khaladaada way jiraan khaladaadkiibaad waxaad ku qaldaysaa dadka wax magaratadaad ku qaldaysaa oo intaa marba shiikh yar oo gaf ka dhaca shiikhu waa insaan waa bini aadmi shiikhu waa bini aadmi waa insaan waa qof la abuuray khalad uu ka dhici karaa markaad marba shiikh yar oo khaldan usoo qabsato culimmada saxsanne aad caybeeso aad cayda loo soo fadhiisato gabdhaha islaamka ee gabdhaha walaaladooda waaninayana aad ceeb ula soo fadhiisato oo aad ka dhigto inay 24 hours gogol iyo nolol kale ka hadlayaan nayaa gogasha nolosha ku dhisan waa la isku guursaday labada qof markay isguursanayaan bilaash iskumay guursan ubad kaliya iskumay guursan haddii gabadh jilbaab wadato intay soo fadhiisay tirada gabdhow ee u nasteexayso tirada ninkiina u wanaagsanaada bal ilaah baan idinku dhaasha soomaaliya waxa ceebtii ku jira maxay tahay markay soo qabsanaysa naagahan khaniisyadu qabaan lagaroonayaashu qabaan ee caalamka wax allaale waxay yihiin maanta diintooda aan la hubin markay soo qabsanayso ay gabdhaha islaamka caayaysa maxay ka wadaa waxay soo qabsatay maalin dhowtay gabadh kale oo ilaahay og yahay heeskay ku haystay naagtaasina waa naag inta badan aan wararka iyo ka fiirsada meelo badan oo gaalada ay wararka ay uga warramayso tv dhan iyadoo wadata goono yaroo jilbaha ku jooga waa naag gaaladu soo korsadeen waa naag ajnabiga la soo kortay waa naag iyada laftirkeeda aan la hubin diinteeda inta badanna waa taqaanaan ma doonaya magaceeda inaan sheego hees aad u foolxun bay gabadhaasi soo qaaday heeskii waa naagta ammaanaysay su'aal bay weydiisay waxay tiri bal sababta aad macnaha usoo qaaday iga soo jawaab laakiin fariin baad gudbinaysay iyadii baaba ka jawaabtay iyadii baa waxay leedahay fariin baad gudbinaysay heeska haddaad dhegaysatana hees fariina ma aha waa hees nolol iyo adduunyo kale iyo wax kale ka hadlayo aad u foolxun qof bini aadmiyo muslina inuu amaanaba u baahnayn bay waxay leedahay waxaad gudbinaysaa fariin baad gudbinaysaa fariinta noocaas la gudbinaya maxay tahay adigaagan farxiyaa bay ahayd naagtii saddexda filin samaysay saddex muufi baad samaysay saddexda muufina mid bini aadmiga faa'iido ugu jirta maad samaynin marka qofka uu filin samaynayo muufi samaynayo bulshada waxay ku intifaacaan buu u sameeyaa wax bulshada ka dhex dhaco uu sameeyaa naagta waxaa tahay filinkeeda uu ahaa gabar soomaaliyeed oo marba bilinka hoostiisa nin ku sugta caddaana oo nin caddaana la saaxiibtay bal waxa laga faa'iidaya ii sheeg waxa laga faa'iidayo naag gabadh nin caddaana raacday bal waxaad bulshada usoo gudbinaysa farxiya ka warran sheeg waxaad kaloo soo gudbisay oo muufigaaga ku jira filimaantaada ku jira saddexdaada filim maan wada dhammaysane oo aan soo ogaaday inaad tiri in wiil soomaaliyeed oo faamilkiisa intuu ka cararay qoyskiisii ka cararay eeyo la noolaaday xaggeen ku aragnay soomaali eeyo la noolaada hadda way dhacdaa kuwa dee sida hadda islaanta yaasmiin oo kale iyo kuwa badan oo eyga banaanka ku haysta eyga diiniya lama diidin inuu gaadhiyahan noqdo ama security noqdo banaanka uu joogo diintu ma diidin in guriga dhexdiisa lagu haysto eygu uu qofka qoyaankiisa ku taabtaa la diiday laakiin inuu banaanka ku noolaada lama diidin balse iyada filinka waxay ku dhigaysaa wiil yar oo ey la noolaaday oo banaanka ku nool oo dibadda reerkooda uga cararay ayay ku dhigaysaa wax laga faa'iidayana iyada ka warrami doonta filmaanta noocaas naagta soo daysay bay ahayd waxay kaloo soo daysay filinka kale argagixisada carruurta argagixisada raaca taas waa ma ku raaci karaa waa macquul oo waayo carruur badan oo hadda argagixisadu ka haysteen baaba jira taasi waa macquul oo filinka kaliya isla ugu macquulsan tahay waxaa tahay naagta kaliya haddana samaysay barogramka adiga naagta kale soomaaliyeed ee aad samaysateen ee ah la cuntee muslim barnaamijka la cuntee muslim
waxay ugu soo casuuntay ciyaal yar wada say wallaahiya oo luuqadda muxuu ahaa dhaqankii Soomaaliyeed aqoonin oo diintii Soomaaliyeed inta aqoonin ba inta gaalo meel ugu soo xareysay oo cunto u karisay bay tiri su'aasha doontaan weydiiye bal waxa laga faa'iidaya ay sida u galayso ii sheeg hadday run sheegayso oo qof muslina tahay oo ay rabto inay bulshadu isdhex galaan oo ay rabto gaaladan iyo muslimiinta kale inay isbartaan taasi ceeb kuma jirto bini aadmiga bulshada waa la bartaa dhibaato kuma jirto laakiin waa inay bartaa oo u keentaa qof experience diinta iyo dhaqankaba u leh laakiin ciyaal yar wallahi billahi tala videogeed waxa ku jira leh I get confused yani waan isku buuqabaan garan waay waxay weydiinayaan ciyaal yar oo dhalinyaro ah oo hadduu doono wadankii aan weligood aadin ba dhaqan la weydiinaya diin la weydiinaya maxay ka wadaa marka qof islaam ay sheeganaysaa markaad bulsho wax u sheegayso ama bulsho aad rabto inaad iska dhaadhiciso ama aad bulsho rabto inaad isbarto waxa la keenaa qof cilmigeeda iyo khibradeeda leh baa la keenaa laakiin looma keeno dhalinyaro yar oo iyagaba inta badan waxay fahansanayn marka gabadhani aad bay diinta wax uga soo horjeedaa hadday diin garanayso waxyaabo badan oo u baahan bulshada u baahan tahay ayay ka hadli kartaa laakiin uma baahna inay marba shiikh soo qabsato marba shiikh beenawaas iyo beenaalo way ay ku sheegto culimada ilaahay inay caydo gabdhaha islaamka inay caydo dadka inay bahdisho waxay tiri maalin dhaweyto bal eega bay tiri waxay leeyihiin bay tiri kelmadan galmada bulsho kastaaba waxaa jira eray suuqiya iyo eray macquula jira kelmadaha gaalada waynu garanaynaa sex waynu garanaynaa waxay tahay laakiin marka qofka uu professional u hadlayo muxuu yiraahdaa intimacy buu yiraahdaa haddii annaga Soomaali ahaan kelmadii wacda ka bilaabaysay la joojiyo oo inta laga sheekeeyo wax laga sheekeeyo leeyahay waa galmo dee galmadu waa kelmad professional ma aha suuqi ma aha marka hadhina bay tiri kelmadda marka iyada la weydiinaya kelmadda Soomaaliga markuu shiiq raba inuu wax muxaadareeyo oo ka hadlay istimaaca labada qof uu ka hadlo ila noloshii baa ku dhisanay labada markuu ka hadlayo shiiqa marka ku caayisa leed bal eeg wuxuu leeyahay galmu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim kelmadda ku hadlayday marka kelmadii wda wacda ka bilaamaysa waa rabtaa in la yiraahdo inuu shiiqa yiraahdo iswaxeeya baad rabtaa miya farxiyaan masaasaad rabtaa in la yiraahdo naya hooy bulsho kastaba dhaqan bay leedahay bulsho kastaba luuqad bay leedahay bulsho kastaba waxay wax ku soo gudbiyaan bay leeyihiin annaga kelmadaha saxdaana ceeb ha nooga dhigin wixii wanaagsanaan ceeb ha nooga dhigin kuwa aan ceebta lahayn ceeb ha u samayn kuwa ceebta lehna ha amaanin oo ha dhihin jacaylka waxba kama taqaanan Soomaaliyeed sidaad iimaan noogu soo qabsatay oo kale jacayl hadday wax ka taqaano iimaan khaliis may guursateen laga roona may guursateen gaal ah naya waxa aad diinta islaamka ku haysa in badan baan ku arkay adigoo inta badan diinta caayaya iska dhigaya mutacallimad iska dhigaya mutacallimadeeda haddaad leedahay aqli baad la iman lahayd maalin walba lama atimaadeen qof khaldamay khaladaadkiisa waxaad soo qaadataa shiikh maanta ka hadlaya walaalaha la heeb sooco waa sax waxyaabo badan baa khaldan oo ummadda islaamka lagula dhaqmay walaalahan waxyaabo badan baa lagula dhaqmay waa run laakiin culimada islaamka ee ka sheekeynaya waxaad tidhaahdaan mar walba tusaale waxay usoo qabsataa bal eega wax wanaagsan kama hadlaane oo ba wax wanaagsan baad ogashiin Soomaaliya intiina badan miyaa tagtaan baanta haddii meel muxaadaro laga samaynayo oo wacdi laga samaynayo waan wada ogsoonahay laba qof baa yimaada meesha haddii qurun iyo balaayo laga sheekeynayo sida hadda naagtan heeska intay marba idiin soo qaadato arrimaha kale iyo qurunka idinkaga sheekeynaysa waad dhegaysataan laakiin culimadii loogu talagalay inaad dhegaysataan miyaad soo dhegaysateen mid walba hadduu intuu halka soo fadhiisto yiraahdo kama hadlaan shiikhu waxa kama hadlo shiikha 100 jeer buu ka hadla uu idinku daale idinkaan soo dhegaysanin idinkaan tegin meelaha loogu talagalay muxaadarooyinka idinkaan dhegaysanin war masaajidadii baa maanta wax yar ku jiraan sababta maxaa keenay shaydaan baa idin wada wata shaydaan baa idin wata ummadda ilaahay culimadooda way ammaan geliyaan laakiin Soomaalida shiikha ma ammaan geliyaan culimada ma ammaan geliyaan maalin walba wadaad bay ku dhigan yihiin waa tanoo ayaan dhawata waxaan fiirsanay Sheekh Umar 1995 maxaa ka soo wareegay shan ilaa 6 sano ka soo wareegay wiil yar isagoo ah caata maantana oday 9 jira ayuu noqday waad wareeriseen Sheekh Umar hadalkii buu kari laayay xanuun iyo muran bilaayo ka bixi laayay nafti ilaahay baad u keenteen culimada ilaahay way idinka nasan laayihiin dad culimadooda ku taagan 24 hours culimadooda ceebo u sameynaya wax kalena aan ummadda ku soo kordhinayn dadkan oo kala jira siiba naagtani ugu horeyso farxiya cabsiye la leeyahay naahoy ummadda ka har oo ka har muxuu ahaa masaajidada ka har oo culimada ka har oo maalin walba dumarkan aad caayaysa naagta tiri waxa weeyaan
إن قبل الصوماليات محا هلك لقلا هلا حتى لما برن سيدا السنة دي في الساء وما ذا لقوا برن سيدا السنة دي في الساء حاجات كوارت قبل الصوماليات وسخ أغلب إلهي سبحانه وتعالى قبل والبسية نظافة صوت عالم كانوا وش هاي معها نظافة ده إنك استحد لفت كده تصالحات أسواق هذا نيس تشيب أن كلين ما تسوق هذا نيس سوون كجرانيا تشيب أن كلين بلاش بلوير لكن كلين وين قبل الصوماليات كلين وين قبل الصوماليات نظافة يا واحد البوال بري واحد أدوق عقل ونقونيسه واحد أدوق وحبريسه هذا معها نفط هذا وود كاجت كتلين كرتا هديهن قبل الصوماليات لما صابرين هذا قبل ما أنت عليك هو يا والبنا ويتقانا قبل يد سيدا ولا هذا الشو هو يا والبا ويقرانيسه قبل يد سيدا وبرتا رمها سوكله هو يا والبا وحن هو أو صوماليات قبل يد ما أنت سوق انقارسي إني محوها وحي وبهنتا شندد يقردو ترى هو يا وحا مركا وحا سياد عرفتنا وحا استعمال هو يا والبا وسيدا أدو واحد إن تور لسوق سحسه كايقان هو يا والبا وسيدا ودقنت ويان مركا إن قبل الصوماليات وذا قرانيسو inaad gabdhihii Soomaaliyeed dhaqankooda taqaano inaad gabdhaha nadaafadooda taqaano bal maxaa gabar kale nadaafadeeda ku baray nin baa tamiyad guursatay namaada guursaday gabadha Soomaaliyeed maxaa nadaafadeeda si ay soo nadiifisay gubasheedii arrimeeda waxa uga waramaysa ma nin baa ta hadduu ninka warraba la garayba laba qof oo kala duwan baa leeyahay laakiin adoo gabar ah inaad gabdha kale eedayso oo gabdha kale habeen iyo maalinba tiraada la baaye sidanay noqdeen kanay noqdeen gabdhaha ceebayn gabdhaha ceebayn nadaafad iyo waxba gabar Soomaaliyeed baa loogu yimid asluub iyo dhaqan gabar Soomaaliyeed baa loogu yimid gabadha jilbaabka wadatana ha aayin tii qaawna ha amaanin naahoy umada Soomaaliyeed kuma fahmin anigu waan ku fahmay in badan baan ku fahmay in badan baan gartay inaad meel xun wax ka wado in badan baan ku wallaahi qofka aqliga leh uu ku fahmaya farxiyaa wallaahi maradan la idin soo gashada wax ma aha war hooy Soomaaliyeed wax xubsada war hooy Soomaaliyeed dadkiina hoos fadhiyay sax wa saxda uga haya wax walba sacab ha u tumina waxaad aragtaan basacbada ha u tumina aqli aad wax ku kala goosataan yeesha aqli aad sax iyo khaladka ku kala garataan yeesha aqli aad diintiina ku raacataan yeesha haddii sheekh kelmad ku hadlaya oo xun la idin keeno macnaheeda ma aha inay diintu xun tahay waayo sheekhan waa bini aadmi uu khaldami karaa taan iskaxdina geliya waxyaabaha ay soo qabsanayso waa sheekh culumo marmarka qaar khaladaad ka dhacaya waa insaan waa bini aadam kuwii bay tusaale ahaan inta u soo qaadato baa qofka aqliga gaaban wuxuu dhahayaa wallaahi waa run sheekhiiba hadduu saa yidhi waa sax diintana waxbaa ka qaldan caqliyan waa inay caqligiina isticmaashaan waa inaad fakartaan inuu sheekhu insaan yahay inuu bini aadmi yahay inuu khadaa yahay inuu wax khaldo ogow laakiin diintaadu wali waa diintaadu wali waa diintaada adaana lagaaga baahan inaad barato haddii meeshii culummada iyo mu'tamarada iyo xadiistu ka dhacayaan aad ka dhuumanaysaanna ma baran kartaan qof walbaa mara idiin soo qaadanaya oo idinka dhaadhicinaya diintiina inuu xun tahay Soomaaliyeed ka fiirsada dumaradan wax ku samaynaya waxa ka mid ahayd maamalyuun waxay ku fiican tahay waxyaabahan ku jeclaha jira khaladkeeda way ka soo noqotay hadda ka hor markay soo gashay waxay qabsatay Sheekh Abu Dalha aad bay u qabsatay Sheekh Abu Dalha way ka hadashay wayna raali gelisay khaladkeedii way ka soo noqotay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii marka wax ka sheegtay way ka soo noqotay insaan weeye lama dhihi karo muxuu ahaa ma khaldamo weeye lama dhihi karo ilaahay baan khaldamin way khaldanta way ka soo noqotay laakiin farxiyo cabsiyo dhowr sanadood aan arkayo waxay aad u daba dhigatay culimada cid in yar baana fahmaysa in yar baa fahantay gabadhan meesha ay ku socoto maalin walba cajal in yar ayay idiin soo qaadanin maalin walba qayb yar ay idiin soo qaadanin sida ay ku socoto waxa weeyaan siyaasad gaareed weeye siyaasadda gaareed ee falsafadaha kale dadku aaminsan yihiin naagta sheekh kishka aaminsan weeyaan kishka oo aaminsan in daanyeer laga soo bilowday ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu noo sheegay meesha bini aadmiga laga abuuray in calaqna laga abuuray cadna laga dhigay laf la geliyey naf la geliyey 4 bilood neefta lagu afuufay quraanka ilaahay bay ku wada taala isagoo saa u garanayo oo diinta aad leedahay quraanka wuu yaqaana ayuu haddana wuxuu la soo istaagay daanyeer baanu ka soo bilawnay wallahi ajridiisa ku jira inaan bay ka sheegin ninka noocaas naagta tiri hal dhageysto sheekh Umar iyo sheekh Shibilana ayda weeyaan culimada ilaahay ba aad loo daba dhigay wayna khaldan tahay qofkii wax fahmayaan waa fahmaya qofka fahmaynin uu fahmaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أمدا ذاتك الله صادري إيجارك الله صادري إلهي أمدا إسلامك عكا قبطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته